بسم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سورة دواد أصحابت الجنالكي وحيران إيوال عليه عن جعلها maanta insha Allah ilaa idinkiis waxa idin wadaa ma ahan fiidiyo cunno karin iyo wax noocaas ah maanta insha Allah waxa idin wada waa sheekadaas oo insha Allah aan rajeynayo inaysan noqon doonin sheeko kaliya balse ma aragtaa noqon doonto mid aad ma aragtaa wax ka faa'iidaan waxna ka kororsataan insha Allah marka sheekada hadaan idin bilaabo horta sheekadan ma ahan horta sheekada iiga sheekeeyana ma ahan sheeko aan meel ka akhriyana ma ahan laakiin sheekadan waa sheeko wallahi aan xaqiiqad aan maaragta goob joog u ahaa marka sheekadan sida ay u dhacday iyo maaragta iyo qaabkay tahay insha Allah waa idin sheegi doonaa marka sheekada waxay ku dhacday qoys Soomaaliyeed lamaana Soomaaliyeed ee isjeclaa ee meel wada deganaa ee horta sheekada ku dhacday qoyskaasi lamaanaha soo maaragta dhibaato adag oo aad iyo aad u weyn la kulmay dhibaatadaas kalamay kulmin dad ma aragtay aad iyo aad ay uga fog laakiin waxay dhibaatadaas kala kulmeen dad wala xaqiiqda ay aad iyo aad ugu dhow marka sheekada hadaa idin bilaabo insha Allah ilaa idinkiis warkay aan ku dheereen horta qoyskan waxay horta reerkan diris ahaan jirnay reerka marka waxay ka koobnaayeen waxay ahaayeen sad adiga waxaan xasuusteeda qaldan waxay ahaayeen gabadh iyo laba wiil walaalaheeda iyo aabahood imaamadoodin marka way nooleen way dhimatay iyo waxay ahaayeen marka iyo wiil yar oo adeer wadaadka aabahood u yahay iyo gabadhan ay qabaan marka sheekadu waxay ku saabsan tahay gabadhan ay qabaan iyo wiilka qabo gabadhan iyo wiilkan horta waxay isku barteen maaragta ka hor intaysan isguursan horta duruuf adag isku barteen oo gabadhan wiilkan waxay guursatay ayadoo ma arag waxay guursatay asagoo waxba xoolo aan ka dhicin oo xataa maxay heedo shaqo fiican aan haysanin oo shaqadu ma aragta markaas ka shaqeynayay ahayd shaqo ma aragta meel shaqo adi tababar ah qof markaas cilmigiisa oo dhameystay oo la tababarayo asoo ma aragta horta gabadhan guursatay laakiin horta muhiimada guurka ma ahan dhaqaale kaliya laakiin muhiimada guurka waxay tahay ani aragtidayda hadii laba ruux oo qalbiyadooda isjecel yihiin la helo daacad isku ana waxaan aaminsanahay horta guurka inuu ma aragta sii jiri karo walow aysan dadku dhaqaalaba lahaanin idinkan fikradiina kulli waad ka dhiiban kartaan marka aan aragtidayda gaaban ee yar mugud aan taas ila tahay marka maxay heeto ala kullin xaal wiilkan gabadhan duruuftaas adag ay isku guursadeen duruuftaas adag ay ku wada noolaan jireen markii dambe wiilkii waxa dhacday marka hore waxay isku guursadeen horta gobol ay gabadh ma aragtaa deganeed oo reerkooda uu deganaa gobolkaas wiilku shaqo uu doontay kadib markii gabadhii wiilkii halkaas ku soo guursadeen halkaas isku barteen qisadoodan halkaas ka bilaabatay markii isguursadeen kadib wiilkii dib u soo laabtay asigii gabadha xaaskiisa ahayd gurigii reerkoodii iyo gobolka reerkoodii uu deganaa oo soo laabtay markay u soo laabteen marka meeshan waa meesha marka anaga gobolkan wiilka reerkooda degan yahay waa marka anaga meeshan diris ku nahay sheekadan aan xaqiiqada waxa iga sheekeysay gabadha ee sheekada ku dhacda aan iga sheekeysay marka sidii ay u ahaayeen wiilkaas iyo gabadhaas lamaane isjecel aad iyo aad isugu faraxsan noloshoodu aad u qurux badan tahay la dhihi karo wax walba oo lamaane isjecel ay isku huraan isku hur jireen dad aad iyo aad isugu qanacsan aad iyo aad isugu faraxsan dhaqaale yarida iyo tabardari maaragtay aysan tabardari iyo daciifnimo aysan ku keenin noloshooda ahaayeen aad iyo aad isugu qanacsanayeen aadna isugu faraxsanayeen waxay sida ahaadaanba waxa dhacday maalinta dambe waxa dhacday in maaragta horta gabadhii uur bay yeelatay uurka ilmahooda ugu horeeyay ahaa marka gabadha markay uurka yeelatay waxa dhici jirtay maaragta markii qoyskaas aan idinkaga hadlay calashan sida isku jeclaayeen hadii gabadhaas ay tiraahdo xilli dambe maaragta oo habeenimada xilli dambe adiga kalbarka habeenka hadii intay seexan weyso ay tiraahdo walaal aniga seexan kari waayay banaanka rabaa inaan maaragta hawo soo qaato Soomaaliyana waa meel iska aad ogtiin xaaladeeda oo waliba markan hadba ay saytaa way ka sii dhib badneed markaas go'aami kooxeedii iyo waxyaabo adiga qunjuraaf badan iska jir marka maxay heeto hadii xilligaas ay tiraahdo walaal waxaan rabaa banaanka inaan ii kixist oo hawo soo qaato wallahi wiilkaas naftiisa isma dhiijin ama dhibaato ugu dhacdaa ama saan dhacda uu kixin jiray halkaas waxay kaaga muuqataa sidoo gabadhaas uu maaragtaa rabitaankeeda inuu buuxiso u jeclaan jiray marka gabadhan ku daalinay waxa dhacday gabadhii wiilka sidaas isu hayeen isku faraxsanaayeen gabadhooda ugu horeysay curad adduunyada imaatay gabadhii markii adduunyada imaatay reerka waxa ku bilaabmay khilaaf
iyo dagaal iyo gabadhii wiilkii markay indhaha iska qaadaanba inay maaragta isdiriraan oo sheekadiiba dhankii ujeeda mahan dhan kale isku rogtay. aada iyo aaday isugu dhibtoodeen, aada iyo aaday isugu rafaadeen, dagaal joogte, muran joogte, qaylo joogte. ma ahan keliya wiilka qabo ee reerkoo idil baa gabadhi ku kacay. wax sabab muuqato gabadhi loogu kacan meesha ma taalo. waa iska qadar iyo qoraal ilaahay adiga si saas u ahaayeen. gabadhan waxaa dhici jirta anaga gabadh weynoo imaan jirtay darsi ahayn guryaheena isku dhaganaa. aada iyo aaday dhibaatadeeda nooga cabin jirtay. in waxaa dhici jirta inay reerku kulligood maaragta gabadha macalla dumaashiyaashidan intay isugu tagaan gabadha gacan loo qaaday. gabadhuna magaalada qariib ay ku tahay, cidna ka garan mayso oo waxa weeyaan reerkoodii gabadha maxay ahayd wali way kasoo tagtay oo waa inay sheegeen gobol kale gabadhan ka timid. gabadhi aada iyo aad u dhibtootay wallahi. gabadha waa sabir siin jirnay maxay ahayd walaal iska sabar, adduunyada waa iska imtixaan. waa wax loo sabran meesha ma biyaalaan. mar haddii wiilka ku qaban uu maxay ahayd wali kugu xumaaday reerkiisina ay kugu xumaadeen oo xataa ay dhaceyso wadaadka sodogaa gabadha dumaashida wiilka dumaashiga kan ku qabo kulli inay gacan kugu qaadaan isugu kaa tagaan. keliya wiilka adeerka maaragta adeerkood uu dhalay kaa keliya maaragta garab istaagi jira. kaasna dee awood maba lahanba oo ilmo yarna uu yahay. ilmo yar ka sokoona dee maaragta maxay ahayd wali wax uu wuxuu sameeyaba dee maba lahan. marka wiilka yarka asaaba reerka marti iyo qariibku marka waxba gabadh uma qaban karo, waxba ma ku dheera. laakiin asagu kulli dhibaatada loo geysanayo waxaa dhici jirtay mararka qaar intuu difaacin asagana xataa lagu daro. idinka hore idinku daalin aada iyo aada gabadhaas u dhibanaan jirtay, maalin walba isku jirto. waxaa taas usii dheer gabadh yarta ay haysato waa gabar jiro ku dhalatay, aada iyo aada jiroole u ahayd. wallahi habeenkii oo dhan intay la taagnaato cid ka caawinaysa malahan, cid ka bedelaysa malahan. qofka nolosha aad ku darsato markuu kugu noqdo maaragta qof kaasoo horjeeda nolosha dhanka kale isaga kaa bedelaysa. marka maxay tole waxaa dhici jirta maalin habeen gabadha inay la taagnaato. gabadha yarta wala aada iyo aada ugu dhibanaan jirta. gabadhan way jiraneed daawooyin iyo waxbaa la siin jiray. aad xanuun markaa wixii laga daaweynay anuu ma garanaya, laakiin maarka habeen iyo maalin aada bay u qaylin jirtay. wax dee qof maaragta saacidayna malahan, maxaa la saacidaaba ayagiiba cadow ku idinka hore aan ku daalin. waxaa dhacday maalin maalmaha kamid gabadhii inay baxday oo maaragta gobolkii ay hooyadeed iyo walaalaheed deganaayeen ay aaday u safartay. gabadhi markay safartay waxaa dhacday marka inay hooyadeed soo booqatay. hooyadeed dhibaatada u sheegatay. hooyo waa iska hooyo waxay tiri hooyo waxaas waxba ma ahan, reerkaaga iska dhaqo, ilaahay baa farad kuu furi doono. adigu way soo waanisay bas. marka waxaa dhacday gabadhi way soo baxday way soo safartay way iska soo laabatay. maxay samaysaa hadii hooyadeed beesaan leedahay ilaahay waxay ka rajeynaysaa inuu farad u furo insha Allah, ilaahayna uu furi doonaa sida soo socotay. marka insha Allah waxaa dhacday gabadhii maxay ahayd toole inay iska soo laabatay. marka wadadii ma aragtaa wadadii xirmatay. marka wiilkan markaan shaqo helay oo shaqo fiican oo markaan ka shaqeeyay mushaar fiican oo qaatay hay'ad uu shaqeeyaa. marka gaari hay'adda leedahay uu gabadh wiilka ku doonay. marka sheekada soo kale yar dhaafay gabadhan wiilkan haddii ifan meel maaragta guriga ka baxsan ay wada joogaan sida hadda meeshan uu soo kaxin doono kale iyo suuqa hadii wada joogaan oo kale intoodiyo si isugu faraxsan yihiin ma malaysan kartid. waad la yaabsay asleeda war maxaa qaldan. gabadhan way ku wareertay waxay tiri war maxaa xun ninkan haddana meel isku raacnay waa kiisi aad taqaan hadaa guriga ku laabataan waji kale waxaa dhacaysa inuu intuu telefoon ka soo dhaho maxay ahayd wala ama telefonkii waxa ilmo yar ku mashquulsan tahay ay arkayso oo maaragta guriga markuu yimaado gabadhii waa dagaal waaba kan waaba gacan qaadaa. war hadda aniga meeran ku mashquulsanaa walaal maxay rabtaa waa gacan qaadi dila ku xig. adinka wareed ku daalina gabadh wiilku wuu doonay. haddii dhibaato yar ee gabadha ma aragtaa ay ku dhacdo sidan hadda wadadu ay ku xirmato karantood horta aabihii walaalihii waxay leeyihiin hadoonin maxaa ka rabtaa maxaa ku daba dhig waxbaa ku fal naagta xunta hanoo keenin ma rabnee iska fur intaas asaal waay asna wuxuu taagan yahay ma furayaan wax kasta dhacaan. marka gabadha wuu doona marka wuu keenay gabadh maalintaas maalin iga yaabaneed malahan. gabadha markuu keenay saa markay albaabka uga soo galeen gaariga weli taagan xataa wiilku uusan bixin waa la istagaar waa la isku dhacay. waryaab badan ayaa asaysto xaafadda la isku soo baxay hebel heblaaya istagaalo waay. war hebel heblaaya hadda imaadeen maxay isku dagaalayaan maxaa se dhex mari karo. marka maxay toole horta way asaystaan waay. marka aad sheekadaas horta qariib u ahayd gabadhan iyo wiilkan sheekadooda gabadha ku wareertay wax la fahmi kari waayay noqotay. anigu waxaan dhihi jirnaa walaal sheekadan maxaa ka qaldan. maalinta dambe marka waxaa dhacday wiil walaalkeed ah walaalkiis asaga ka weyn ma aragtaa wuxuu
gabadh ku yiri sheeko aad iyo aad iga yaabis waa sheekada meesha aan aniga laftarkeyga u qaadan waay marka insha Allah sheekada wiilkii wixii dhexmaray sheekada insha Allah way qeybaheeda dambe insha Allah idinku sheegi doona fiidiyowga dheeraada intaan ka badan noo sii dheeraadana ma rabo marka insha Allah ilaa idinkiis qeybaha dambe sheekada nala socotiina rajeyna ilaa dhamaadka sheekada ma aragtaa inaad la socotaan assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu